kulanti wanaagsan khiyaar meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka saddex geesoodka ee Israa'iil iyo Mareykanka oo dhinaca iyo dawladda dalka Iran wax la saadaaliyay iyo wax la yiraahdo Mareykanku duqeynta uu ka soo qayb qaadan doonaaba haatan dagaalka oo dhex taagan yahay weeraradii ugu cuslaa ayaan qaadnay ayuu Mareykanku leeyahay waxaanu muuqaalkan ku eegi doonaa sidee weerarku u dhacay maxaa laga ogyahay ilaa haatan Iran tilaabada ay qaado ayaa waxa la leeyahay dagaalkii saddexaad ee dunida ayuu sababi karaa iyo dhulgariir inuu ka dhasho bariga dhexe maxaa Iran la gudboon iyo hadalka madaxweynaha Mareykanka ayaanu soo qaadan doonaa waxa barnaamijka igu martiyay aad iyo aad uga mahadcelinayaa wariye sare qoraa isla mar ahaantaasna falanqeeyo weyn ustaad maxamed cawaale oo barnaamijka igu martiyay dalka Mareykanka muddo dheer ku noolaa si wacan oo la socda xaaladdu meeshay marayso daawadayaal idinkuna soo dhawaada waa 22 bisha 6 sanadka 2025 waa barnaamijkii labaad ee aynu ka samayno tan iyo intii weerarka Mareykanku uu qaaday kii hore hadduu ku dhaafay halkan ka daawo si aysan waxba ku sheeginin maxamed waa ku soo dhaweynaya ummadda Soomaalida meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abdi xaafid waa dhawaay dhammaan shacabka British Somali TV ku xidhan oo salaamaya waayahay maxamed haddii aynu eegno waynu ogeen Trump inuu qorsheynayay 2 week baan qaadanaya ayuu yiri hore ayaan nooga soo warnay in dadka markaas loo sheego war aan sugnayn wax kalena la damacsan yahay Soomaalidu waa ka dharagsan tahay khiyaaradaas iyo sabaaxadaas siyaasadeed ee la isasiinayo meelaha la doonayo in la weeraro wax ka duwan dadka lagu mashquulinayo ugu dambeyn weerarkii waa dhacay Mareykanku ma ku guuleysan karaa inuu gabi ahaanba dhulka dhigo nuclearka Iran abdi xaafid horta wali wax maartay cad oo laga soo waramay ma jiraan iyagu sida ay sheegayaan waan qarxinay bay leeyihiin waa sida cishadii dhaweetaba Israa'iil lahayd laakiin waxa ogaan kara oo hadhow toona laga dareemi karaa hadday taasi dhacdo radiation xoog la bixi doona dhul badan baa maartay qasbi doona iyo inay taabataba burburkeega xitaa wax isqarsoonaya ma garanayno laakiin imikahan iyagu waxay rajaynayaan inay gaadheen waa rajayn weeyaan waana laga filanaya sidaad sheegtay inuu Donald Trump dagaal qaado sidaad sheegtana sabaaxad siyaasadeed u baahayd sheekadu akhrinayo lahaa 2 toddobaad kadib baan weeraraya horta nimankan waa la fahmay shaxdooda kol waxay ku hadlayaan lama raaco ficilkooga baleega wala la isku diyaariyaa waxaan qabaa inay Iran ay diyaar tahay وهجاج طبعا انت hadda hadlaysay waxaan jeclaa inaan kugu biiriyo adigii daawadayaashaba sargaal sare oo u hadlay Iran waxa uu leeyahay wax shucaac ah oo ka soo baxay xarumahaas Mareykanku uu sheegay inuu weeraray ma jirto warkaas waa war weyn hadduu dhab yahay maxaa lagu macnayn karaa laftigiisa islaam waxa lagu macnayn karaa horta Iran ma qari karaan oo haddii ay taabato oo ay meesha ay burburiyaan qaaca baqiiqa ka soo bixi doona waa radiationka dad badan buu taaban doonaa laakiin saan anigu marka la socon jiray saad u xasuusatay doorigii waagi ka qoray ayri Iran hadday nuclear samaysato waa laga gudbi doonaa oo haddee toole nabadgelyo meesha ka imanaysa waxaan markaan darsi jiray qoraalada ay scientistigu ay qori jireen inay ugu tala galeen B2 diyaaradda ku garaacayaan bamkeyga maahine xitaa diyaaradda la yidhaha B52 ay gantaalka ay qaado iyo ugu tala galeen dhismaha ay dhiseen suuna u soo gaadhin iyo sibirka ay ku dhiseen ay muddo dheer dhisayeen ma la burburi karaa ilaah baa garanayno ma garan karo laakiin wax qarsoomaya uma malaynayo iminka haddii ay Iraniyaanku ay yiraahdeenna haddii ay run tahay oo la burburiyey ma qarin karayaan se way dhici kartaa inay weli ay wax sidaas u taaban waayahay Iran waxa ay tiri haddii Mareykanku dagaalka soo galo waxaan anagana aanu bartilmaameedsanaynaa
gebi ahaanba xarumaha militariga maraykanku bariga dhex ku leeyahay 19 xarumood inuu ku leeyahay la sheegay ciidamo ilaa 45 ilaa iyo 50 kun u dhaxeeya ayaana ku sugan ayaa leeyahay bariga dhexe Iran tilaabo noocee ah ayay qaadaysaa ayaa isleedahay maxaa soo banaan sideeda horta shaydu watay Israel dagaalka soo qaadaba dad badan baa u haystay inay hadeeto Iran la burburiyay Iran Tehran uma aha Iran waa dhul weyn Iran sida iyagu ciidankooda iyo madaxdooda ay sheegeenba iyagu waxay isku diyaarin jireenba waa dagaal uu ku soo qaado Mareykan iyo isku diyaarinayeen waxba uma arki jirin ba Israel waxay oran jireen anagu waan burburin karnaa Israel wayna tuseen adduunyadii inay burburin karaan waa kan Netanyahu iminka u yeeya cabaaday laakiin waa dabcan haddii militarily uu xoog u taaban waayo Mareykan dhaqaal ahaan uu taaban doonaa ninkanna sidaan iminka hadeer boqoray oo qoraal soo geliyey X-ka iyo Facebook-aba nin ay nimankani Zionist-ku ay ku shaqaysanayaan weeyaan consequences-ka xitaa isagu ma fahmi karo waayo aqoonteedii ma leh nin guryo gadi jiray waa real estate oo popularity-giisa madaxweyne ku noqday nin fahmi kara ma waa nin ay khayaamayaan marka laakiinse marka ay dab holac badan uu ka dhaco waayo Cabdixaafid oo inaan iloobin Xuutiyiinta oo quwadda ay Iran ay leedahay oo kale aan lahayn yaa kaga qaydisiisay oo tiri hasdayno isagoo cabsi ku gelis buu isleeyahay ku cabsi geli laakiin de waxayna jecleen ba ka soo bixi doona maxaa yeelay generaal Iraniana adeecadooda lagu wareystay oo subtitle English lagu turjumay wuxuu yiri horta anagu quwaddeeda 5% un baan isticmaalno yiri waxaan se kordhinaynaa haddaan kordhino buu yiri ilaa 30% waan baabi'in karnaa waxaa ka mid ah buu yiri ciidankayga badda ma baan dhaqaajin booli ciidankii kale wuxuu yiri maartay dhulka ma kicin marka iminka waxa laga yaabaa ay la sugayeen dagaalka Mareykanku inuu soo galo waa run waxa burburi doona hay'ad laakiin mid baaran ku ogahay iminka xoogaaga uu ku tuuray iminka markay ogaadaan Donald Trump loo sheego leeyahay waxba ma taaban ila hadal siiyay oranaya nabadgelyaha sameeyno way baryootamayaan dad kale markay telefishinka ay soo joogsadaan bug way boodboodaan waxbaan dilaynaa waxbaan jibinaynaa waana naga cabsada iminkada uu baryootay wuxuu Maxamed Ali Khamenei ilaahda siiyay Ali Khamenei lama hadlo madaxda lama hadlo isagoo loo yimaado maahine ujeedadooduna waxaan u maleynaa inay helaan telefoonada ay kula hadlayaan iyo isna kama yeelay because shaqadiisaba ma shaqada madaxweynaha Iran isagu waa supreme leader weey wuxuu ku shaqaleeyahay isagu shaqooyinkiisii badnaana iminka uu kala bixiyay amba maaragtay uu qaybiyay maadaama uu dagaal uu xoog leh ku soo socdo wuxuu garanayaa sirahoo dhan inuu la dhinto diidayaa hadday tiisa timaadiyo hadday wax ku dhacaba because wuxuu yidhaahdo oday waa yeelaanahay 85 jira cidaan anigu uga cabsanay ilaahay baan isku diyaarinayaa waddadii ilaahay marka dabcan horta qiiq xoog leh dagaal xoog leh ka bilaabi doona meesha Mareykankuna qayla la isku dhifan doonaa markay dhalinyar badan oo militariga baseskoga la laayo waagii hore way qariyeen waagii ay dileen dadkani waxay dadkooga intaa oo dhanba ay been ugu sheegaan ay ilaa intaa oo dhanba ay beentan u wataan way ka qariyaan waagii dhaweeytay ciida ay dileen generaalkoogii Suleymani bayskii Ciraaq joogay way dhulkalay waa la burburiyay Iran way burburisay askar badan baa laga dilay 20 ayaa ku dhintay dhaawaca xaq cadad ba malay laakiin way qariyeen inkastay qareen laakiin ma qarsoomi doontaan u malaynay waayahay Maxamed dabcan ma qarsoomi doonto haddii Iran ay weerarto saldhigyada military ee Mareykanka sida ay sheegtay dagaalku intaas inuu ka sii ballaaranaya ayaa muuqata Iran waxaynu ognahay khubaradan ay tiri inaad ku raacsan tahay in kalena ma garanayo adaa noo sheegi doona waa dhul buuraley ah aad uga weyn Ciraaq aana la geli karin Afghanistan ayaad ogeyd wixii ka dhacay oo lagu jabo laga soo cararay barqadii Iran ciidamada dhulka gudaha u galaan waa habeenkii xalay tagay ayaa leeyahay
laakiin haddii iiraan ay bilowdo inay markaas ballistic missiles ay ku garaacdo xarumaha militariga maraykanka dhimasho iyo dhaawac ay timaado trump inuu soo rogaal celiyo miyuu ku khasbanaan doonaa arrintaasu maxay ugaga dhigan tahay trump oo lahaa oday nabadeed ayaa noqonaya dagaal oogi maayo doorashadana kusoo galay wadamada carbeed ee ciidamadaas ay degan yihiin reactionkoodu muxuu noqon karaa ayaad isleedahay imikadanba horta ku horeeyo wadanada carabta khaliijka ee baysaskooda ay ku leeyihiin maraykanku fadhiyada hubka waaweyn ay dhigteen diyaaradaha horta fartay dhuunta ku hayaan oo way og yihiin iiraanna way u degtay dowladda iiraan xitaa way u digtay xagga haddiina laga soo weeraro ogsoonaanada bay yidhahdeen annaguna kolkaa dagaalka aan qaadno kuwaad ka soo kabanaysin ma noqon doono horta iiraan shaxdeedu way u degan tahay shax waxay dejisteen ilaa 20 sano u dambaysay sana haddeer aan ku bilaabayba dagaal ka dhan folkafoola oo dalkooda lagu difaaco yaa iman doona waxaan saaka aan akhrinayay suurat al-isra waxaan u malaynayaa inay aayaddu ilaahay suurat al-isra noogu sheegay inay noqon doonto dagaalkani haddii uu sii ballaadho dagaalkii akhri zamanka waa waqtigii ay ninkana Donald Trumpna waxa wataa nimankan Zionistige ee yuhuudda sheegta laakiin ilaahana garanayn laakiinse waa waqtigu ilaahay noo sheegay waqtigu quwadoodu aad u ballaadhato way kibraan kibirkaasina mar kale hatayay burburi doonaan waxaan u malaynayaa tani dagaalkani markuu ballaadho dagaal wuxuu noqon doonaa dagaalkii saddexaad ee lagu jabiyay waayo iiraan horta mid inay dadweynuhu ay fahmaan ismana dhiibi doonto haddii ay xuutiyiintu ay ka adkaadeen hadday ka adkaadeen afghanistan ma iiraan baa ka adkaan karayn waa su'aal weyn taas in la isweydiiyo leh waayahay haddii dhinaca kale aynu eegno netanyahu waxaa muuqata in uu ka adkaan waayey iiraan inkastoo duqeymo culus u geystay asagana weeraro hameen maalin iyo galab aan kala joogsanayn lagu qaaday uu maraykanka u yeeray culudda israa'iil intee mid la eg weeye wixii laga aaminsanaa wax ka duwan baa soo baxay ayaa la leeyahay horta cudud israa'iil kolka hore cudud ma lahayna waxay ahayd diyaaradahooga iyo hubkooga iyo waxaan oo dhan calanka israa'iil unbaan lagu nabaayo waa maraykan iyo ingiriis iyo faransiis iyo bay weligood bahaan jireen oo dagaalami jiray cududoodu waa tala tusay adduunyada maanta waxaa qaawisay iiraan xitaa diyaaradahoogii dagaalka meel ay fadhiistaan ma jiraan waxay geeyeen Cyprus baa lagu leeyahay oo warkaa la xaqiijiyey maadaama ay garoonadoodii diyaaradaha Israa'iil ka burburisay horta hadday gacan sareeyaan ay cudud ay leeyihiin uma baahnaanba inuu maraykanku soo galo laakiin maraykanku maanta Donald Trump wuxuu u bilaabay jabkii maraykanku u bilaabay waxaa xitaa annaga xoog noo taaban doonaa Strait Hormuz markuu la xidho dagaalku markuu ballaadho shidaalku cirku tegi doonaa nolosha cirka inta tegi doontaa banaanbaxyo weyn baa ka bilaami doona maraykan xitaa labada sano soo socda ama sanad iyo bar baaba ka dhiba midterm electionka soo socda demokraatku uu sii salaxaya oo demokraatka ayaa bedin doona oo ka faa'iideysan doona dagaalkan isagu wuxuu ka faa'iideystay dagaalkii waqtigii Donald Trump Biden Ukraine dagaalku ku qaaday iyo xasuuqu ku daawarayay Gaza iyagu ka faa'iideysteen marka waxa aan rajaynayaa ilaahay ha badbaadiyo dadka laakiin si dad badan kumayaal qof ku dhiman doona boqolaal kun qof ku dhiman doona laakiin dhulkuna wislagu isaga qudhiisa Cabdixaafidow wuxuu amar ku bixiyay diyaaradda in Washington DC la keeno markii maraykanku ka cabsaday berigii waxay sameeyeen Soviet Union oo diyaarad lala cararo markii oo muddo dheer sabada ku jiri karta haddii nuclear lagu soo tuuro maraykan ilaa intuu nuclearkaasi kala joogayo xitaa raashinkeega le muddo dheer hawada dhex hayaami doonto marka maxaa keenay inuu amar degdeg ku bixiyo diyaaradda Washington DC la keeno oo madaxweynaha lagu qaaday iyo dawladdii inta badiyana waxaa loola soo cararaa haddii waagii sidii xitaa September 11 gobolkan Colorado waliba
buuraha magaalo Colorado Springs la yiraahdo buuraheega waa sida iyagu ku dhaliilaan Iran iyaguba waayo hore samaysteen waa bankaro hoosta ah oo xafiisyo idin leh waa Mareykanka Colorado waa gobolka waa bartamaha Mareykanka marka waxay u samaysteen hadii nuclear beriga Soviet Union ka soo daarsadaan madaxweynaha iyo dawladdiisa lala soo cararo oo Colorado Springs dusheeda la keeno ay degaan oo hadii uu laakiin dhulka soo gaaro qiiqru diyaaraddu ay sabada hayaabto marka waxay rajeynayaan inuu dagaalku horta dagaal ciyaar noqonayn iyagu soo isku diyaarinayaan dadkoogana may diyaarin MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaaray MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada ma doonaysaa inaad noqoto software engineer xirfadlaha adigoo jooga gurigaada isla markaana adeegsanaya internetka oo kaliya ah leedahay riyo ah inaad la shaqayso shirkad caalami ah ma doonaysaa inaad xirfadaada dhisto adigoo adeegsanaya internetka oo kaliya ah ma doonaysaa inaad ka mid noqoto qayb ka mid ah isbeddelka digitalka adduunka Fast Track Technology Academic ma ahan oo kaliya ah maxad wax lagu barto ee waa goob soo saaro arday tayo sare leh oo ka dhex muuqata suuqyada caalamka ee dhinaca shaqada waxaa diyaar kuugu ah macallimiin loo carbiyey hababka casriga ee waxbarashada kuwaasoo hubiya in arday kasta inuu helo faham buuxa iyo taageero joogto ah waxbarashadan waa mid ku salaysan tayada waayo aragnimada iyo mustaqbalka dhabta ah ee suuqyada shaqo ee maanta iyo berrito maxadkan oo ah mid soo saaro injineer IT oo ku takhasusay software engineer data science cyber security iyo cloud engineer isla markaana si ardayda ka qalan jibisay khibrad shaqo ama internship sidoo kale maxadka ayaa waxa uu ka shaqeeyaa sidii uu ardayda u geyn lahaa shaqo mana ku xirna oo kaliya inaad joogto dalkan UK waxaana ka baran kartaa caalamka oo idil adigoo joogo waxaana ku